ayaa ka dhashay qaabka doorashada Soomaaliya ee muranka badan uu ka taagan yahay taas oo ay dad badan rumaysan yihiin in gacanta loo geliyay dad kooban su'aalo badan oo ay kamid yihiin mustaqbalka dimuqraadiyadda Soomaaliya ayaa ka dhashay haddaba Soomaaliya ma gaari kartaa doorasho ka wanaagsan kuwii hore loo soo maray maxaase ku horgudban waa qodobka caawa aynu ku eegano faaqidada toddobaadka waxaa halkan stuudiyaha ila joogta xildhibaan Fawziyo Yusuf Xaaji Aadan oo koldhow Soomaaliya ka timid sidoo kale waxaa khadadka iiga soo biraya gobolka Virginia Dr. Abdiweli Maxamed Ali oo hore ra'iisul wasaare Soomaaliya uga soo noqday Nairobi waxaa ku jira Abdu Malik Abdullahi oo siyaasadda Soomaaliya ka faallooda soo dhawaada waa maasantina barnaamijka nagala soo qayb gashaan aan ku bilaabo Dr. Abdiweli Dr. doorashada dadban ee Soomaaliya 2020 soddon second maxaad ku macnayn lahayd maxaad ku tilmaami lahayd wallahi waa masanta walaal odayaasha kalena iyo isboostina waa salaamaya waxaan ku macnayn lahaa dimasha doorasho kama dhicin waxaa ka dhacay waxa la yiraahdaa selection oo xulasho nimanka dowlad goboleedyada madaxda ka ah iyo dowladda dhexaba ay xulanayeen cidda ayuu marka ay u arkayeen inay dantooda ay ka dhex arkaan marka doorasho wadanka kama dhicin waxaana ereyga doorashana runtii ceeb buu ku yahay in la yiraahdo doorasho dhacday doorasho ma dhicin waxa dhacay waxa weeye waa xulasho iyo rabitaan shakhsiyadeed oo nin walba isagu meeshuu dantiisa mooday uu la aaday doorashada Dr. Abdiweli aad u mahadsantahay aan Fawziyo soo geliyo Fawziyo adi doorashada oo Abdiweli ka hadlaya lagu doortay maxaad ku macnayn lahayd doorashada sanadka dhacday si fiican buu prime minister ku sheegay selection anaga waa jirtay aniga waa inaan dhibaato badan ka soo maray laakiin taydu waxaan moodayay inay si fiican ku dhacday oo doorasho ay doorteen dadkii marka codka xaq u lahaa laakiin meelo badan doorasho ma aha election ma aha selection xataa ma aha waa xaraash ma garat marka waxa weeye qofka ugu lacagta badan ayaa helay waana wax ceeb ah oo Soomaali maanta inay arrinka caynkaas lagu dhaqmo waqtiga la marayo ceeb bay nagu tahay marka doorashadan waxaan filayaa inay noqon doonto insha Allah tii ugu dambeysay oo noocaas oo dhacda oo laga bixi doono Fawziya adigana xaraash ayaad ugu yeertay Dr. Abdiweli wuxuu ugu yeeray inay xulasho ahayd Abdi Malik adiguna siyaasadda iyo doorashada labadaba waad ka faalloonaysay maxaad ugu yeeri lahayd waa mahadsantahay Maxamed aniga qudhigayga waxba kama duwani Dr. Abdiweli iyo xildhibaanad Fawziya doorashadani wax hadda aan ku tilmaamo aniga oo caqliga caadiga ah ee bini'aadanka koobi kara ma aqaano xogashana ma ahan xagaashna waa dhaaftay musuqmaasuqa iyo wax kasta oo la doonayay in la dhoogo xadka ayuu goostay marka adiga xogasho un baan u malaynayaa inaan aniga qudhigayga kusoo koobi lahaa qofka la doonayo waxay uga duwan tahay kuwii haddaan soo dhaafnay 2012 iyo 2016 tusaale ahaan in si cajiiba qofka soo baxaya xitaa la sii yaqaano isbuucyo ka hor marka ma aqaan aniga magacaan ugu yeeray hadda laakiin waa doorasho noocaas ah nasiib daro waa gartay sida looga gudbi karo dalku u gudbi karo ayaanu u gudbaynaa waxaana filayaa dawladahaas aad qabtaan dad badan oo Soomaaliyeed ay idin la qabaan fikirkaasi mid kamid ah oo aanu dadkaasi qaar kamid ah oo aanu kala hadalnay baraha Facebooka iyo Twitterka waxa ay noo soo direen qoraaladan Jamaal Cabdullaahi Cusmaan wuxuu yiri marka hore doorasho ma ahan waa xulasho ay isticmaalaan qabaa'ilada Soomaaliya aniga aragtideeda waxay tahay in dib dambe aan loogu celin noocan oo kale sidoo kale waxa isagana nala hadlay dad kale oo nagala soo hadlay Facebook ama Twitterka ninba wuxuu soo qoray Axmed Maxamed la yiraahdo in ay dadban tahay oo kaliya ayaan ku arkaa ayuu qofkaasina yiri sidoo kale qof kale oo isagana Facebooka nagala soo xiriiray hadii ay noo suurto gashay inaan idin soo gudbino waxa hadaladiisa kamid ahaa oo uu yiri Kamaal Cadaawe waa socon weynay aan orodno weeyaan Dr. Abdiweli soo dhawow waa socon weynay aan orodnadaas hadii aanu ka sii wadno Soomaaliya inay ka gudubto doorasho dadban tan iyo 2000 markii carta shirka uu ka dhacay maxaa hor taagan ra'iisul wasaaraha soo ahayd wasiir qorsheyn baa soo noqotay Puntland baa madaxweyne ka ahayd maxaa hor taagan walaalo horta Soomaaliya horta dadku ay fahmaan weeye inagu dimuqraasiyad iyo doorasho sax ah oo dadku wax soo doortaan oo dadku ay MB-gooda u codeeyaan
9 sano oo dowladdii shibilka ahayd ayaanu soo aragnay taariikh fiican baanu leenahay oo la xiriira dimuqraasiyadda madaxweynayaal si nabad ah xilka uga dago isku wareejiyaanu leenahay aad cadde iyo cabdishir cali sharmaarke 67 horta dadkanu inay fahmaan weeye annaga naguma horeyso doorasho hadda ah يعني 60 sano ka hor iyo 50 iyo dhowr sano ka hor ayaanu isu dooran jirnay si wanaagsan taas weeye maxaa hortaagan dee waxa hortaagan runtii waxa weeye dan annoma aan ku jiro laftigaygu maadaama dee aan mas-uuliyadahaas anugu aan soo maray runtii waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan waxa weeye in dowladihii kala dambeeyey aysan riixin amase aysan waqti badan gelinin in doorashada ay dhacdo dabcan wadankuna duruufo adag ayuu isaga jiray oo dee wadankii shabaab maanta xamar baa ujeedaayo qaybo ka mid ah shabaab soo weerarayaan marka the environmentkii doorasho saxa ay ku dhici lahayd oo hal cod iyo hal qofi waxaa moodaa inay dhib badan tahay waqti waa dhoweyd waxaanu la yiri xisbiyaa lagu galayaa iyadiina waa ay suurtageli weyda aad baan uga xumahay laakiin waxaa jira proposalo kale oo dad anugu aan ku jiro aan soo propose garaynay oo ahayd war meeshaan 4.5 waxa lagu dooranayo ha lagu doorto waxa la yiraahdo constituency waxa la yiraahdo amase deegaan ha la aado deegaanku micnaha maaha in qorqor iyo dani iyo axmed madoobe iyo wax soo xulaan waxa weeye deegaan dowladda deegaan oo xildhibaanada lagu qaybinayo degmooyin dabcan qaab noocaas in la aado taasoo noqon lahayd transitionkii meeshii laga sii aadi lahaa doorashadii cod iyo qof ahayd sababto waxa weeye hadda ma muuqato in isla markiiba loo boodi karo doorasho cod iyo qofa sababtoo adee waxaan jirinin yani shuruudihii ka horreeyey ayaan la hirgelinin oo aan dhicin doctor waa mahadsan tahay fawzi adiga aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaa cilada hortaagan waxa weeye 4.5 anigu 8 sannadood baan campaign ku jiray in laga joojiyo anigu waan qabaa inay 100 goor ka sahlan tahay 4.5 in laga tago oo doorasho qof iyo cod la galo sababtoo isla dadkii la lahaa 100 ama 50 baa codaynaya oo qabiilka ahaa oo dadkii lagu kala qaybinayo waxa la sameyn karaa in sanduuq meel la dhigo imika caasimadahaas laga dhigay in inta sanduuqa la dhigo dadka oo loo fasaxo which qof waliba xaqiisi dareemayo constitutionkii ay ku qoran tahay qof waliba article 1 oo constitutionka waxa ku qoran Soomaaliya waa dal xor ah oo dimuqraadi ah oo ku salaysan nidaamka xisbiyada badan xisbiyada already waa la sameeyay kharash baa la galay mudda la conditionska dad badan ka baxeen waxa dadka loogu celinayo qabiil ay ku dagaalanayeen nacayb iyo dagaal iyo waxaan maanta taagan 4.5 ayaa ugu sahlan in inta laga baxo waxa ugu sahlan in la sameeyo qof iyo cod dadkuna sharaftiisa iyo karaamadiisa helaya qofku dareemaya in dadkiisu doorteen qofkuna xaqiisa helaya adduunkuna nagu ixtiraamaya laakiin se waxa la sameeyay adduunka 12 doorasho ka jira waa nooca 13aad oo inaga samaysanay dhinac waxa la leeyahay waa qabiil dhinac waa dawlad goboleed dhinac waa yani waa confusion dadka loogu talagalay inay ku wareeraan waxa ugu sahlan sanduuqa xisbiga u batana dawladda ha soo dhaliyo anigu saasaan qabaa waa gartay cabdi maalig soo dhow adiguna meel ku dhufo halkay sartu ka qoransan tahay maxamed waa mahadsan tahay aniga waxaan aaminsanahay in asaasiyaadkii loogu talagalay in doorasho qof iyo cod ay ku dhacdo inaan bagaga shaqayninba dowladda hadda jirto iyo kuwii ka horreeyay aysan ka shaqaynin su-aasha marka imaanaysa waxaa weeye maxaa aasaas ah oo ay tahay in la sameeyo si doorasho qof iyo cod ay waddanka iga qabsanto kow midda koowaad waa in amniga si fiican looga shaqeeyo inaan xaqiiqada isku sheegno waayo waddankan inta amnigiisu sidan yahay aniga uma malaynayo in doorasho qof iyo cod ay ka dhici karto ama doorasho middan ka duwan oo dabcan dee qof iyo coda ama wax dadku ay codanayaan midda labaad oo ah xasilooni siyaasadeed iyo heshiis siyaasadeed inuu waddanka ka jiro macquul ma noqonayso inta siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay seestaan in doorasho qof iyo cod ay waddanka ka dhacdo ta saddexaad oo ah in la dhammaystiro sharciyadii sida constitutionkii dastuurka waddanka iyo sharciyada sida gaarka u khuseeyo doorashooyinka midda afaraad oo aan kusoo koobayo waa in waddanka ka qabsoonto tirkoob dadkuna ay helaan aqoonsi dadweyne ama national ID intaas haddaan helin aniga uma malaynayo in waddanka ay ka qabsoomi doonto doorasho qof iyo cod ah cabdimaal waa mahadsan tahay fawzi ayaa farta taaganaysa fawzi waxaan rabaa inaad noo sheegto oo noo raacaysataa maxaa talaal ma filaysa inay waxaas dhacaan horta number 1 nooca doorashada laynoo dooray wuxuu ahaa markii xisbiyada aan samaynay wuxuu ahaa nooca la yiraahdo PR
proportional representation dalalka dagaaladu ku dhacan baa loogu talagalay tirakoob uma baahnaba meelaha caasimadda haddaba laga qabanayo doorashada ayuunbaa sanduuqa la dhigaya halka oday soo qoraya unbaa sanduuqa lagu ridaya nabadgelyadana the same thing hadda dhacaysa waxa hadda dhacaya way ka sahlan way ka nabadgelyo badnaanaysaa waa qodob maxay ahayd waxa kaloo jirta in sharcigii doorashooyinku waa diyaar sharcigii xisbiyadu waa diyaar commissionkii doorashooyinku waa diyaar halimayare maalintii waxay ku bariyootamaysa 8 bilood siiya ama sanad iyo 3 bilood doorasho mar hore la qaban lahaa laakiin waa siyaasad loogu talagalay dalkan in lagu ragaadiyo cabdiweli ayaan siinaya su'aasha ugu dambaysa 4 sano kadib ma filayna inaan ka baxano cabdiweli waxaan rabaa intaan taas aan ka jawaabin waxaan rabaa anigu segway u dhaxeeya cabdimaalig iyo in la sameeyo fawziya oo fawziya leedahay hadda la qabto cabdimaalig uu leeyahay shuruudihii la qaban lahaa oo ka mid tahay voter registrationka ama si diiwaangelinta dadweynaha tirakoobka nabadgelyadii xasilintii dalka iyo degmooyinkii la dagaalanka shabaabka dalka laga saaro waxaasoo dhan si loo rabo qof kasta oo Soomaaliyeed qolo gaari ama gobol gaari aysan awood u yeelan iyagu ay doorashada aad u mahadsantahay Dr. Cabdiweli iga raali noqo waqtiga ayaa iga soo dhawaad Cabdimaal waa ku mahad celinaya iyo Fawzo intaas ayaan ku barnaamij ku soo gabagabaynayaa nabadgelyo